shirkadda caalamiga ah ee Nokia waxaa laga aasaasay Finland waxaa la aasaasay sanadkii 1865 waqtiyada kamid ah shirkadda Nokia waxay ahayd shirkadda ugu weyn moobilada ee adduunka balse haatan waa mid hoos u dhacday kadib maxay ahayd sababta ka dambeysay burburka Nokia si aan arintan u fahanno marka hore waa inaan ogaano sida ay Nokia u noqotay astaan aad u weyn oo caan ah Nokia waxay iibsatay shirkad telefoon oo lagu magacaabo Mobira marka hore waxay samaysay aaladda telefoonka gacanta ee lagu hadlo 1982 Nokia waxay soo saartay telefoonkeedii ugu horeeyay ee gudaha gaari kaliya lagu dhex isticmaali karo waxaa loo yaqaanay Nokia Mobira Senator culeyskiisu wuxuu ahaa 10 kilogram 1984 waxay soo saartay telefoon ay ugu magac dartay Nokia Mobira Talkman wuxuu ahaa telefoonkii ugu horeeyay ee la qaadi karo waxaa loo isticmaali karay gudaha iyo dibadda gaariga culeyskiisuna wuxuu ahaa 5 kilogram sanadkii 1987 Nokia ayaa ka yaabisay adduunka oo dhan iyadoo soo saartay Nokia Mobira Cityman wuxuu ahaa telefoon ka fudud kuwii hore waxaana loo isticmaali karay meel walba wuxuu ahaa kaliya 800 gram Mobira Cityman wuxuu noqday mid si weyn loo iibsaday Nokia waxay noqotay shirkad caan ah telefoonkan dartiis 1991 Harry Holkeri ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii Finland wuxuu sameeyay wicitaankii ugu horeeyay abad GSM ee taariikhda isagoo adeegsanaya moobilka Nokia 1992 shirkadda Nokia waxay samaysay Nokia 1011 wuxuu ahaa mid si weyn u gaaray Yurub iyo Ameerika telefoonkoodii ugu fiicnaa iibka ee loo yaqaanay Nokia 2100 ayay soo saartay 1994 wuxuuna ahaa telefoonkii ugu horeeyay ee noociisa ah oo la soo saaro Nokia waxay filaysay in ay iibiso 1 milyan oo telefoonkan ah balse taas beddelkeeda waxay iibisay 20 milyan Nokia waxay ka sarmartay sida ay filaysay balse Nokia waxay samaysay qalad aad u weyn waxay qiimeyn qaldan ku sameeyeen suuqa sanadkii 1990 Nokia waxay saadaalisay inay jiri doonaan 40 milyan oo isticmaalayaasha moobilada ah adduunka oo dhan marka la gaaro 1999 balse waxay noqotay saadaal qaldan kadib markii isticmaalayaasha moobilada ee sanadkii 1999 ay gaareen 250 milyan laakiin wali Nokia waxay ku guuleysatay inay suuqa ku garaacdo shirkadda Motorola waxayna noqotay shirkadda ugu awood badan suuqa moobilada waxayna suuqa ku lahayd ku dhawaad 25% dhammaan moodalada ay sameysay shirkadda Nokia ayaa ugu sareeyay shaxda iibka ee adduunka Nokia waxay sii waday inay cusboonaysiiso nashqadeyntii astaamaheeda u gaarka ah laga soo bilaabo 2003 ilaa 2005 Nokia 1100 iyo Nokia 1110 waxay ahaayeen moobilada ugu iibinta wanaagsan ee shirkadda muddo yar kadib Nokia ayaa qabsatay 70% suuqa Aasiya balse Nokia waxay ku fashilantay hal arin kaasoo ahaa la qabsiga horumarka ama isbeddelka ee suuqa moobilada adduunka dhamaadka sanadkii 2010 iOS iyo Android ayaa lagu soo bandhigay suuqyada Yurub iyo Ameerika Shiinaha wuxuu soo saaray tiro aad u fara badan oo moobil ah Aasiya iyo wadamada bariga dhexe shirkadaha Samsung iyo Motorola ayaa soo saaray moobilo wanaagsan oo qiimo jaban 2010kii shirkadaha moobilada badankood waxay doorteen Android balse Nokia waxay dooratay Symbian oo ah shirkad nashqadaysa telefoonada casriga ah soo shacbixidii shirkadaha Google iyo Apple Nokia way ku adkaatay inay ku tartanto suuqa moobilada adduunka Nokia waxay ku sii adkaysatay in ay xoog saarto hardware-ka moobilada halka dunida inteeda kale ay u dhaqaaqday inay xoog saaraan software-ka moobilada Stephen Elop ayaa noqday maamulaha cusub ee shirkadda Nokia wuxuu isku dayay inuu dib u saxo qaladaadkii shirkadda iyo inuu wax ka bedelo hanaankii hore ee moobilada shirkadda kadib Nokia waxay isku dayday in ay dib ugu soo noqoto suuqyada caalamka balse mar labaad ayay dooratay ikhtiyaar qaldan shirkaddu waxay damacsaneed in ay doorato Android balse taas beddelkeeda waxay dooratay Windows Nokia waxay isku dayday in ay gaar ku noqoto hanaanka Windows balse arinta ay Nokia fahmi weysay ayaa ahayd in hanaanka Windows uusan la jaan qaadi karin moobilada sida ugu fiican moobiladaas oo ay ku jireen malaayiin barnaamij oo Android iyo iOS ah
tani waa sababta Nokia oo ahayd shirkadda ugu weyn moobilada adduunka ee si xun ugu guuldareysatay suuqa.